hooyadan Soomaaliyeed ayaa wax laga dhacay gaadhigeedii oo waa laga baxsaday. Haddaba waxay ka qaylinayso ay ka naxday maha gaadhiga, laakiin gaadhiga ayaa waxa ugu jiray ilmaheeda oo 3 bilood oo kaliya jiray. Dhacdadan ayaa wax ka dhacday Minneapolis waqooyigeeda. Hooyadan Soomaaliyeed ayaa hadda gaadhigeeda ka soo degtay iyadoo qufulnayn muddo gaadhaysa 59 daqiiqo oo kaliya. Fiidiyogan waxa duubtay CC kaamirada qarsoon. Haddaba muuqaalka ayaa noqday mid viral ah oo gudaha Mareykanka iyo dunida daafeed oo dhan qabsaday. Hooyadan ayaa waxay wacday ciidanka booliiska oo waxay u sheegtay gaadhiga taariikhdiisa iyo say wax u dhaceen. Haddaba ciidanka ayaa waxay baadheen CC kaamirooyinka wadooyinka oo isla markiiba way howlgaleen ciidamadii booliisku. Waxa la howlgeliyay drones aad u fara badan. Ugu dambeyn ciidanku ay ku guuleysteen oo taariikhda gaadhiga ay arkeen oo ninkii waa la qabtay. Ilmihiina isagoo nabad qaba ay hooyadii heshay. Alxamdulillah. Haddaba fiidiyogan ayaa noqday viral ah maadaama fiidiyogan uu ahaa mid argagax leh oo hooyadu qaabka u qaylinaysa qaabka u naxday ay ka muuqato inuu wadnuhu soo dhici rabayba. haddaba fiidiyoga copy link noo taabo muuqaalka loof noo saar page-kana follow noo soo dheh.